waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimahan shalay aad walaalka Yuusuf MCAgi maqnaa oo deela aas ka hadlay waxaan leeyahay walaalayaalow waxaasi wax jira maaha waana wax ay dad ka shaqeeyeen magacayga haleyn rabo loogana tirigalay Nairobi way wajeer dadku wixii jira way ogsoon yihiin dadka reer wajeer been looma sheegi kara wixii jira way ogsoon yihiin laakiin waxa looga tirigalay in magacayga haleeyo Nairobi looga tirigalay waxaan aaminsanahay wax Yuusuf ma qorin waxaan aaminsanahay waxa qoray dad siyaasi shakhsi siyaasi oo siyaasadiisa 2027 u baqaayo oo raba inay reer Caldas in iska haykaan hor keeno sidina asaga wax ku raadinaayo waayo asaga waa yeeli way inaas aniga toos isoo abaare aniga magaciisa toos uma sheegayo laakiin waa fahmi kartaan ku yahay laakiin walaalkeen uu isticmaalay ayaan leenahay caday wixii aad sheegtay annagana wixin ognahay oo sidii ku imaad presska shalay annagana aan u dhiibaynaa tolweynaha iyo qolooyinka baaritaanka haddii walaalkii aad aaminsan yahay in aniga aan ka dambeeyay qabashadiisa ama sahayntiisa waa ilaa hadda moogin qafay in aad maqnayo la soo diimaan ogsoonna oona dhahay wixii ku dhacaa ana yeelay waxaan ka codsanaa booliiska inay baaritaan samayso waxaan ka codsanaa in arrintaasi aan la fududaysanin cabsida igu weyn oo maanta ay hayso waxa weeyaan Yuusuf dadkii waxa qori yiri in ay dilaan oo liira Axmed Cabdullaahi ka dambe Soomaali weyntu way isgaranay nin walba wuxuu yahay waa la og yahay reer wajeer way og yihiin Axmed Cabdullaahi wixii ka suurtooba reer wajeer way og yihiin dil qafas ka suurtoobay marka anigu waxaan ka cabsanayaa dadkii ninkan waxaan u qoro saan dhahay iyadoo tolkiisa as leeyahay yeelin iyadoo MCAyaasha wajeer ay leeyihiin war waa qaldantay hayeelin waraan lagu isticmaalin iyadoo la leeyahay qafkii kuwa ka qoray inaad Yuusuf ku dilo aniga leeyahay qabsan ka cabsanaa hor dawladdu waxaan ka codsanayaa weyn oo waraqda ku qoran Yuusuf securitygiisa amnigiisa in la xojiyo wararkaas badbaado u baahan walaalayaal anu waxaan ka cabsanaaba dadkii waxaan ka qoray in ay ku baxaan oo aniga ma aragtay kaalmo waciga leedahay siyaasadana way si wasaqoobi haysa tan noodistan oo ma jirto wiigan waxaan aragnay tan wajeer inay ugu darantahay waxaan tolkii ka codsanayaa arrintan dawlad ayaa baari way waxyaabaha aan hadda liga sheega waxa weeyaan in bamaarta security Kenya dalaan wadaaso aniga niska simple governor annahay security ani ma hoos imaado security waxay hoos imaadaan national government madaxda hadda meeshan kula hadashin waa ku maaragtay ayaga oversight gareeyaan national government in dawladda ay baarto يا كدم بي يوسف يا هاي محلو هاي وحيابان ومدى اسكو كعين كرتا ضد ولا لا ادريسا اسكو دري كرتا ضد اسكو حمانا اسكو وركيني كرتا الى او باريتان كاس laga soo afjaraya waxaan dawlad baa jirto xalinayso waan ogaanayna harwajeerna waxyaabo badan oo ogeena jiro tolka aan la isku laayeen anigana statement baan qori oo le booliista hal baaro inaan lu kulaha Yuusuf Armis hal baaro ha noola sheego qofkii ka dambeeyay laakiin waxaan also aan ku codsanaa booliista statementigaasi dadkii lugta kulaha hal baaro way ku asan anigu baqay Yuusuf intii aan ka hayno dadka ayagan waan dhibayna insha Allah baad ma santiin inta saarayna sheego walaalayaal hay walaal dad waxa jira walaal بروباغانكن إيه فيدنادا سياسة كراديو أنا كبد ميكوا وحنا مسين ملكو إلهاي هذا راديك وجار واد قرنيسا
سفرنا تبركي اللي سو دورنا انت ام بي او ليش عتاد واد garanaysa ku yihiin haddana koor taagana gabanana yaa soo door shicib ku jiray soo doortay laakiin dad waxa jiro ay ka dhacsan tahay marka reeraha isku dirto ama saasfina sameeyso baad wax heli kartaa أنا وحنا مشينا ذاتك يا يوسف كدنبي شو ما نستعمله حدي يوسف أردنا أن نكسو قربحين وايو نقول الشيء نقطر يجليني تيدي نقطر يجليني وإن أصديار وهذا إن أد محكمات كعديو سي أنا وجري مغنى شديسو مركا إذا واحد بدأ صباحين إن شاء الله تعالى